ciidanka goobta ka muuqda oo aan garan karo inay ciidan ka soo wareegay maamul goboleedka Puntland oo uu wato hogaaminayo gaashaanla sare Cali Diiriye Baalle Cali Baalle oo caan ku ah baan u malaynayaa deegaamadan muddadii dhowr iyo 20 sannadood ahayd inta Garowe iyo Taleex u dhaxayso waragii aanu muddada faraha badan isku haynay deegaanka waqtiga faraha badan aniguna aan lahaa war xaggan aan naqle iyana waxay lahaayeen hogashu xaggay jirtaa qudhi laakiin maanta waxaa caddaatay in hogashu xagga iyaga jirto waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa korneylka iyo askarta iyo sarkaal xigeenka iyo ragga meesha jooga ee gartay in wakhtigu aanu sii wadi karin dhibta iyo cadaalad darrada iyo sheegashada dhulka ee ay samaynayaan dadka deegaanku war ciid iyo dhul iyo deegaamo iyo magaalo idinku filan waad haysataan iimaansada oo jooga oo ku shaqaysta oo wata halkan col iyo nabatoonna maxalle col laydin kama hayo meel aanu duulaan ku nahay iyo meel aanu rabnaa inaanu qabsannaa ma jirto waxaan maanta laga bilaabo u aqoonsanaynaa inay yihiin ciidan qaran oo ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ogtihiin oo ninka siyaasiga ee Puntland jooga hal kelmad ma oran karo annaga qaylo waxa ragayaga Hargeysa jooga waxa qaylo iyo dagaal iyo buuq naga dhacaya iyo inaanan cidna uga haybadaysan danta iyo waxa ummadda reer Soomaaliland iyo xaqa aanu ku leenahay inaanu ka qayb qaadano dhismaheeda constitutional xaq baanu u leenahay waanu wadnaa laakiin macnaheedu maaha inaanu cid u daba fadhino wixii halkan la idin soo gaarsiiyaa waxba leeyahay maaha ee waa waxaad xaq u leedahay waxba idin siiyay maaha waa wax qaranka iyo dastuurku iyo dalku idin siiyay idinkana sidaa mid la mid ah ayaa la idinka rabaa oo ah inaad dalka iyo calanka iyo ciidda iyo xuduudaha dalka difaacdaan Abdi Jaamac Saan TV magaalada taariikhiga ee Taleex